gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyiinta Soomaaliyeed siyaasi Salaad Cali Jeelle oo kamid ahaa wufuudii ka soo qayb gashay caleemasaarkii madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo wareysiiyay TV-ga Universal ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in madaxda Soomaalidu ay xal buuxda ka gaaraan khilaafaadka dhexdooda kadib is-afgaradka ay ku gaareen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland isagoo sheegay in sanadkan 2019 la rajaynayo inuu noqdo sanadkii la soo afjari lahaa khilaafaadka siyaasadeed iyo madmadowga ku dhex jira madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Marka hore Universal waa salaama gaar ahaan Universal Garowe. Runtii marka la fiiriyo caleemasaarka ama munaasabadan weyn oo la isugu yimid oo Soomaali lixaad la isugu timiday runtii waxay ahaaday xilli ku habboon oo timiday waxayna ahaaday mid muujinaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sida gaar ahaan Puntland caasimadda Garowe loogu wada qanacsan yahay oo dadka Soomaaliyeed guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo shacab ahaanba Soomaaliya ay u ahaaday ama ay u tahay meel ay mataqaanaa ku tashan yihiin oo ay qiimo gaar ah u hayaan oo cid walba xiriir inay la leedahay Garowe muujinaysa oo cid kasta oo aan hore isu arkin meel ay ku kulanta ayay u muuqata runtii hadee doorashada ka dhacday Puntland waxay ahayd doorasho marka loo fiiriyo si habsami leh ku dhamaatay muddo 5 sano hoggaan cusub la doortay marka aad iyo aad ay u ahaaday munaasabad weyn oo ummadda Soomaaliyeed taariikh ka gashay. waayahay dabcan munaasabada kadib madaxda Soomaalida waa ay shireen kulamo isugu yimaadeen oo hormuud ka ahaa madaxweyne Said Cabdullaahi Deni is-afgarad ay gaareen ay kamid tahay in bisha saddexaad ay isugu yimaadaan Garowe si arrimihii midnimada iyo khilaafkii jiray loo xalliyo arrintaas sida aragtaa runtii munaasabadaaba waxay ka ugu muhiimsaneed laba arrimood mid waxay ahayd caleemasaarka midna waxay ahaaday maadaama madaxda dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay qaarkood isbedeleen qaarna ay mataqaanaa dowladda dhexe xurguf kala dhaxaysay meel wax lagu bilaabi kara oo markaani laga amba qaadi karo xaaladda Soomaaliya ama habka wada shaqaynta si loo gaaro dowladda ku xigta qof iyo codkiis oo dalka uga dhici lahay iyo arrimo la xiriira ama nabadgelyadu muhiim ay ugu tahay arrimahaas fursad weyn aheeday taasna markii maahmaahdii la qaatay xala dhalay oo uu soo jeediyay islaamku waxay noqotay marka in arrintaas idoo laga amba qaadayo ama laga faa'iideysanayo inay marka is arkaan madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii heer qaranba oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo Farmaajo tiina markay isla quraacdeen oo ay jaanis isu heleen waxaa ka soo baxday is-afgarad iyo sidii mataqaanaa Soomaaliya waajibaadka hor yaalla ay u guda lahaayeen Soomaaliya mataqaanaa loogu shaqeey lahaa waxyaabaha calaaqtanka iyo isfaham la'aadana meesha looga saari lahaa waana taas ballanta dambe loo yeeshay runtii wada shaqeyn bilowgeedayna ahaaday waana guul ummadda Soomaaliya u soo hoyatay ahaada marka muhiimadda gaarka ah oo ay lahaaday ka sokow caleemasaarka dowladda cusub oo Puntland madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenka la caleema saarayay middan kale oo iyaduna muhiima ayaa mataqaanaa meesha ka dhalatay markii horena cid walba maadaama ay khilaafka faa'iido darradiisa ay aragta marka in arrintaas looga faa'iideystana meesha kama marayn markii horeba marka rajo inta lag baa laga qabaa in labadan sano soo socota madaxda Soomaalida ay gudbaan khilaafkii oo la wada shaqeeyo si dalku hore ugu socdo
runtii rajadaasi aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay xilligan waxaad ogtaha khilaafka kadibna dowlad goboleedyo ayaa hoggaan cusub yeeshay sida koonfur galbeed iyo puntland arrintii xurgufta ah oo ka dhaxaysay maamulada jubbaland iyo galmudugna waa tan hadda lasoo afjaray oo bilow wanaagsan laga gaaray haddee hirshabeellena ay weliba dowladda isla socdeen sidaa darteed marka waxaa waaye rajada la qabo sanadkan 19 in argagixisada Soomaaliya ama kuwa burcadiimeedka dalka laga saari doono horumarna la gaari doono dhinac walba leh sidaasaan u aragnaa Soomaaliduna rajadaasay kala laabata galowga waayahay gabagabadii maxaad isleedahay xal u noqon karaa khilaafaadkan soo noqnoqda ee inta badan soo dhexmara madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada horta Soomaaliya waxay u baahan tahay xilligan isqa qabsi uma baahne waxay u baahan tahay rag loo diro iyo rag rabbi loo diro markaan rag loo diro leeyahay waxaa waaye ummadda Soomaaliyeed geeska Afrika ay ku nooshahay igaday ka tirsan tahay jaamacadda carabtay ka tirsan tahay qaramada midoobay ka tirsan tahay dad la qayb qaada kara oo raggaas wax la qaybsan kara kana masayri kara mataqaanaa waxyaabaha Soomaaliya la haray in laga gudbo oo dalalka facooda la tartami kara ay u baahan tahay runtii taasna hadda mataqaanaa sida go'aanada ay dowladdan Soomaaliya gaartay waad aragtay waqtiyadii adkaayo la soo dhaafay waxaa muuqata in go'aano masiiriya oo dhinaca caalamka la xiriira iyo dhinacyada mataqaanaa wadamada diriska iyo wadamada jaamacadda carabta qaarkood waatay go'aamo adag ay dowladdu gaartay taas oo u muuqata marka wixii hore ka duwan iyo waxaa kale oo meesha ku jirta rag rabbi loo dira marka aan leeyahana waxaan uga jeedaa Soomaaliya waxay u baahan tahay rag alla ka baqdin leh oo cabsi rabbi qaba oo Ilaahay u barya oo yiraahda Ilaahow ummadda Soomaaliyeed u gargaar dhibaatada ka saar yiraahda oo markaasi ay cibaadadoodu toosan tahay oo markaas rabbi ku xiran oo alla u baryana waa u baahan tahay marka waxaan isleeyahay marka 2019 in arrintaas maadaama khilaaf uu yahay dib oona faa'iido oona lahayn in meesha laga saari doono wax la qaybsi caalamka intiisa kale iyo in Ilaahay la baryana in arrinta loo jiheeyo doono saasaan aan isleeyahay runtii ummadda Soomaaliyeedna waa ugu baaqa inay ka faa'iideysato mustaqbalka wanaagsan ayna rag loo diro iyo rag rabbi loo diro inay mataqaanaa isu qaybiso labadaba waa laga helaahay saasaan ugu baaqi lahaa